nin ayaa khamrigiisa aad u badnaa khamri cabis gaal uu ahaa sheeko cajiib badan waa intii ka dhacday khamridu aad u cabi jiray axadda wuxuu tegi jiray kiniisadda nin shaqaystana wuu ahaa ninka kiniisadda jooga wuxuu dhihi jiray haddaad rabto jesus inaan kaala soo hadlo $150 inaad bixiso waay marka hore $150kaasi qolkaasaad ku bixinaysaa rasiidkaad ii keenaysaa aad ku bixisay kadib jesusaan kaala hadlaa waxaan leeyahay ninkan dembigaas uu galay weekendigaan ka cafi ileen mushrikiin waay dadkaan u jeeda kristanka sheeganaya muwaxidiin ma aha ninkii saasuu samayn jiray marka isagaa ka sheekeenaya wuxuu yidhi waxaa iga bixi jirtuu dhahay $600 haddaan 2,000 sameeyo dhahay 600 waxay iga bixi jirtuu dhahay kiniisadda sadaqa maa wuxuu bixinaya la soco waa shuruudihii waaye oo qolada kiniisadda samaysay oo ah ninkii rabo jesus inaan kala hadalno isagaad u maraysaa waxaad bixinaysaa $150 halkii mar marka waxay dhaheen anagoo hooshaas ku dhex jirno oo lacagtaasi faraha badan aan aad u dhibsanayo haddana aan aaminsanahay wixii la sheegayay aan waxaan arkay noloshii inay waxba iska bedelaynin oo khamradiina aan ku noqonayo jesuska loo tagaayay iyo waxaas oo dhan wax igu soo kordhiyey oo isbeddel ma arkin wuxuu yidhi muslimiinaan maqlay oo ka sheekeenaya diintooda wuxuu ilaah wax igu hanuuniyey nin dhahayo ilaahi subxaana wa tacaala allahna abuurtay muslimiin haddaan nahay cid looma maro qofka toos isagu u caabudayaa shuruudana kuma xirna meel go'anna kuma xirna wakhti go'anna kuma xirna wuxuu yidhi waa farxay waxaan ahay diintaan diintee waaye diintaan aan shardi ku xirneen diintaan aan qof loo tegaynin ilaahay qof loo maraynin ilaahay meel gooni aysan jirin oo la aadayo wakhti gooni aysan jirin diintee waaye markaasaa waxa waa diinta islaamka waay markaasaa wuxuu yidhi ani tanaan rabaa ani tan ma raba tan usbuuc kasta aan $150 layga qaadayo jesus qof ii dhexaynayo ma raba ilaahaan rabaa in la i baro waxaa ilaahaan ku barina layidhi marka waxaa tawxiidkaa marka hore loo sharxay wuu ku qancay kadib markaas tawxiidkaa loo qabtay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ninka saasuu ku islaamay markuu muslimay oo khamridii uu joojiyey xumaan dhan uu joojiyey uu toosay waa hispanic waa dadka hispanic la yidhaahdo waa spanishka ku hadlaan oo mexikaanka ah dadkaas diinta oo kristanka aaday ugu xiran yihiin qofkii maraykanka joogaa la socda arrintaas wuxuu bilaabay isagoo afkiisa ku hadlaayo war waxaan helay ilaah oo aan waxba qaadanaynin waxaan helay dad ku xiran ilaahaas oo waxba aan qaadanaynin masaajiduhu ka hadlayaa waxaan ogaaday wax been ah inna lagu guri jiray marka waxaan ula jeedaa anagana muslimiinta sidoo kale waay anagana culummada ah wax aan kaa xigna ma lahan ilaahay cid ka xigta ma lahan yaan been laguu sheegin keliya waa jirtaa dadku waa kala fadli badan yihin waa run oo dadka isku fadli ma ahan inna akramakum cinda allahi atqaakum kiina ugu cabsida badan ilaahay oo ugu cibaadada badan oo ugu ikhlaas badan ilahay waa u dhow yahay waa run ducadiisa waa la aqbalaya waa run laakiin adigaba waa noqon kartaa waay micnaheedu cid kaa xigta ma laha nin ay meel u xiran tahay ma jirto diinta islaamka lidaalika rasuulka alai slam marka rusushoo dhan dadku waxay baraayeen ilaahay keligiis in la caabudo maanta khalwadaan baranaynaa marka khalwo maxaa waay ilaahay inaad u gooni noqoto wakti ka mid a waktiyada aad dooratay waa jiraa waktiyadu way kala fiican yihiin waktiga salaatuleilka oo kale adoon lagu arkeenin adiga ilaahay subxaana wa tacaala haddaad ilaahay la koodo oo ilaahay munaajaad aad la sameysho aad la sheekaysato qaabkana waa idiin sheegi doonaa culummada qaarkooda ay sameeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ducada waa soo dedejinaya qisana waa idiin sheegi doonaa hooyo gabadheeda ku caasisay oo ka tagtay khalway gashay maamadaasi waa maamad soomaaliyeed wayna jirtaa hooyo kaloo iyadana wiilkeeda saas oo kale ka tegey oo suuqa galay dad waxaa jira hadda wiilashoodii ama gabdhahoodii diinta ka baxeen waxaa u sheegay ilaahay aada fafiruu ila allah fafiruu ila allah ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aada fafiruu ila allah su-aala la isweydiin karaa marka waqti intii la egaan ilaahay la hadlayaa waqti go-aan ma jiro hawalwelin maalintii 5 daqiiqo haddaad meel ku dhuuman karto khalaas way kugu filan tahay natiijadan waa arki doontaa waxaa loo baahay culummada waxay dhahaan waxaa jirto aadaab ay yidhaahdo aadaab
آدابتا خلوضة إلهي سبحانه وتعالى لقوني نقضى أياجرت آداب تذكريا شن كاغش يغايا علوما قاركو ذا سدح يدهان قار شن يدهان ترى حديدنا مالها وددالا يعني إيغودان واجتهاد علوما ذا إي سميان وحال الرباء وكلية ودوانشي إلهي سبحانه إن لحقيجيو لما أنتو ذا مركي كهالله خلوضة وحي شرحة عن حديثكي أها أو ذا قرن إيسان وحديثك 40 كجر دير والنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل أو إيماني ودينته أو براي ورسولك كان وجبريل وحو يمت ماركتي دينتينو إنو إذين بره خلوة حديث كاسو كجرا إيه أحاديث آية كلا وجرتا أو سوغيس حديث كلا سوقعته حواي أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله إلهي إن تعبده كأنك تراه أضو أركاي وكلا وكهرجوغ وإلهي سبحانه وتعالى أد هرجوغ توكلا وعابد فإن لم تكن تراه فإنه يراك هدي آذان أركينين استغاكو أركايو وحان أمين سنة دينتين إلهي نونا أركايو مركو حارمنا إلهي معي سئنا نقولنا يدون عندنا لجوغين يدو حاسكا كولو جوغين داد حاس ليضاي هدان إلا يدو ننكا كولو جوغين يدو كليغا آتاي ما قد غاو بانتا وحبا مو باني خلوذا 5 دقيقين نقون كرتاه 15 دقيقين نقون كرتاه حل مالني نقون كرتاه مالمين نقون كرتاه شروطها وحاكم لها أوكلية إن إلهي الذكري نقطه كليسة عدكو أجوك تمالهن وعدكو مقليسة مالهن إلهي إهين يو ملائكتيس أو مرخاتيال كنقونيس خاصة لبدا قلبها قتاغن محا آدابت كم إذا مرك كو آدابتو حاكم إذا الإخلاص أرنتان إنها تكفو جيسو بني آدم أو إنو كو أركو وإلهي سبحانه وتعالى كل جيسو كو أركيو وكوه لابا إناد ويسا قبتا وناكسن شرد معهم ويو خلوة صلاة معهم صلاة دا شرد أهويت لك وحا وناكسن آداب أهان إلهي مركا لها ديسيد هذا بقال كمركي بلان أكوسا ماي لاركو بقرح سنة سواقع عضانيسا أدو مركا لبستي برفونك وحرادينيسا نينكاس أضربت إناد كفر حسو وكو أقبله برفونك وقفي عنها رادسانيسا كوان إلهي كو أبورتي مركا هدي سورة قليسو لبسك وقفي عن حرام مركا محاله هنا كو الإخلاص لابا إن ويسا آد قبطه سدح إن وقتي هكو ابنادو أما هديرادو وقتي إناد سميساتو oo ilaahay kaligiisa aad la hadlaysid oo cidna aan soo dhex galayn telefoonkaaga uu xiran yahay cidna aan ku mashquulinayn oo xaggee meeshaad doonto gaari dhexdiisa ku samayn kara haa adoo gaariga wado oon cidna kula jirin gaarigii markaasi kadib waad samayn kartaa waad labisan tahay weysaad qabtaa cid kuu jeeda ma lahan adiga ilaahaaga waay okay مدى السدحات محان دهني وحاد رادنيسا قوب إلهي سبحانه وتعالى ما هنا عد كلا وكوكو أوغين كو إخلاص إلهي درتي سوسا ما بني آدم خلوة معنى هذا وحاء هذا كلي نمو إلهي كلي لطهي بني آدم وحبال لغو مرها لقلين آيو ولي قانا بني آدم مرها لقلين كرتد إلهي ربطين ورهالي كان نقض مركاسي محاد سمين إيساه ويساقات سدح آدابتا خبلا إنا أجلست شرد معها والدعوة والدعو أصمينيس خبلا شرد معها كلي إنا دهاتا شردها أو كلية مع الله سبحانه وتعالى أفر وحضر أدنيسا آدابتا دعاء وحاكمة يخلوذا آدابتا وحاكمة إن إلهي أد أمانته إلهي وحو إهل وياه إناد كو أمانته سبحان الله لا إله إلا الله وأمان وكلية وكلمة إلهي سبحانه وتعالى لو قدوا هذا وكلمة أقوين صوت إلهي كلمة الله ما أقرأ
caalamka mushrikiina ku badan maanta adoon is ogeyna laga yaabaa mushrik inaad noqoto marka ilaahay wuxuu leeyahay keligiis ku leeyahay oo cid kale aad la wadaajiso shirkiyaad gashay maxaad leedahay marka waxaad ku bilaabaysaa ammaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala subxaana allah laa ilaaha ila allah haddii cabsi kugu jirto xasbuna allah wa nicma alwakiil wax unaad dadka cabsanaysa kurba hadday ku heeso laa ilaaha ilaa ant waa ducada ka hor laa ilaaha ilaa ant subxaanak inii kuntu min alظaalimiin ducadii dunnuun ama ilaahay naxariistiisaa rabtaa cuduraa kugu raagay dhibaataa kugu dheeraatay maxaad leedahay rabbi inii masaniya dur ayuub nabi ayuub calayhi salaam ilaahu xanuun anaa xitaa dur uu ku tilmaamay dhib uu ku tilmaamay waa itaabtuu dhahay oo keliya xishood waay waqti badan uu xanuunsanaa 10 sano ka badan haddana wuxuu leeyahay inii masaniya dur wa anta arxamu raaximiin ducadaas markuu akhriyay kadib waxaa la yidhi malaa'igtiya waxay u sheegtay ama ay u dirtay meeshii markaas uu ku soo dhaqan lahaa oo dawadana uu ka heli lahaa marka ducadaas waxay ka mid tahay dacooyinka ay akhristaan dadka xanuunada ku dheeraaday haddaad rabtaan waa idin soo qorayaa si caam ah si guud ah u soo dalbo say dadkan uga faa'iidaystaan meeshan waan ku soo qorayaa insha allah maxaa kaloo samayn kartaa haddaa keli tahay oo kale waxaan xoola jeedaa haddii arrimo aad ku keliyowday ama arrimo ay ku mashquulinayaan ama arrimo fara badan ay ku haystaan ay kugu furan yihiin markaasi ducadii nebi muuse oo kale akhriso rabbanaa anaa ducadaasi waa duca cajiib badan keligiisu ahaa anaha wuxuuna weydiisanayay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax alla wixii ka maqan ilahay inuu wada siiyo rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahu waxaad isiiso waa u baahnay baahiya hayso wuu gaajeysnaa dad ma haysto weheluu rabay xaas la-aan uu ahaa xaasuu rabay shaqa ma haysto shaquu raadinaaye waddan ma haysto waddanka waa laga soo ereeyey waddanuu raadinaaye oo sharci laga siiyo oo la soo dhoweeyey oo community ku noqdo wixii oo dhan waa keligiisa waa fiir khalwa ku jiraa khalwa waxa waaye ilaahay keligiisa la tahay keligiisa waa muxuu leeyahay rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir waxaad isiisu maanta waa qaadanaya saas waa micnaheed markaasaa gabar loo soo diray gabadhii waxay dhahdaa abbaa kuu yeeraayo shaqaa lagu siinayaa anagaa noo shaqaynaysaa intaas keliya aabbihii markuu u tegay wuxuu dhahay sheekadaada iyo waxa kugu dhacay ii sheeg waxaan rabaa inaan garab kuu noqdo sharciyaa la siiyey waa la dejiyey xaasaa loo guuriyey shaqaa la siiyey community ka mid noqday allahu akbar ilaahay keliya la noqo idaa u baahan tahay ma laha madaxweyne uma baahnid madax uma baahnid idaa u baahan tahay ma laha ilahay keliya ku noqo marka aadaabta maxaa ka mid aan dhahnay midda afaraad ilaahay inaad ammaanto ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanta uu mudan yahay ilaahu subxaanahu wa tacaala laa xawla walaa quwata ilaa billah xeelad melihi awood melihi wax walbo awood iyo xeelad ilaahu adaa leh awooddaada iyo xeeladaada waxaasaan rabaa isii dheh ilaahu kun fayakuun ii dheh ilaahay subxana wa tacala uu ku siinaya